iyadoo dhawaan uu magaalada Buuhoodle soo gaadhay hoggaanka badbaadada iyo xoreynta gobolada SSC Salebaan Ciise Axmed Kaar Xagle toosiyay kadib safar uu muddo sanad ku dhow joogay dalka dibadiisa ayaa maanta waxa uu meel fagaara ah kula hadlay dhammaan dadweynaha reer Buuhoodle. Xagle toosiye ayaa ka warbixiyay safarkiisii uu dalka dibadiisa ugu maqnaa waxaana uu sheegay in xilligani ay dardar gelinayaan hawlaha dhaqdhaqaaqooda. ugu horreynna waxaa madasha ay dadweynaha reer Buuhoodle isku soo baxeen ka hadlay waaxda warfaafinta SSC Cumar Jaamac Salebaan oo isagu uga mahad celiyay dhammaan bulshaweynta reer Buuhoodle midnimada ay u muujinayaan maamulka SSC iyo taageerada ay la garab taagan yihiin had iyo habeen. dhammaan shacabweynaha gobolka Cayn oo ka kooban cuqaal odayaal arday haween saxaafad dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. farxad weyn inaan idinkala soo qayb galno kulankan ballaaran ee ay isugu soo baxeen ummadda intaa leeg oo ah dadweynaha magaalada Buuhoodle. farxad weyn intaa mudanayaal marweyn sidaad la socoteen annagu muddaan idinka maqnayn muddadii aanu maqnayna waxaanu ku maqnayn howlaha SSC khaasatan arrimaha la xidhiidha xagga internationalka oo aan wax badan ka soo qabannay. sidoo kale waxaan ku ammaanaynaa shacabweynaha gobolka Cayn guushii iyo xoreyntii iyo halgankii ay u galeen sidii ay isu difaaceen. dhanka kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdilaahi Axmed Nuur oo ka mid ah saraakiisha gobolka Cayn ee magaalada Buuhoodle oo isaguna ka hadlay arrimo la xidhiidha shirka Khaatumo 2 ee dhawaan la rabo inuu ka qabsoomo deegaanada gobolada Sool Sanaag Cayn inay shirkaasi soo dhaweynayaan ayna doonayaan dhammaan dadweynaha reer Buuhoodle inay martigeliyaan shirka Khaatumo 2 ee dhawaan la rabo inuu ka qabsoomo deegaanada SSC. iskana soo hortaagay in shirka Buuhoodle lagu qabto. anigu laba socon Salebaan Ciise iyo waftiga waxaa jooga Buuhoodle. waxaan idinka tacsiyeynayaa isimada iyo dadka waxgaradka reer Buuhoodle ee gobolka Cayn ka mamnuucay shirka in lagu qabto. in shirka Buuhoodle lagu qabto gabagabadii waxaa halkaasi isaguna dadweynaha kula hadlay hoggaanka SSC Dr. Salebaan Ciise Axmed oo isaguna u mahad celiyay dhammaan dadweynaha reer Buuhoodle sida wacan ay isugu soo baxeen waxaana uu ka warbixiyay xaaladaha ay ku maqnaayeen muddada dheer ee safarka dibadda ugu jireen. sidoo kale waxa uu hoggaamiyuhu u mahad celiyay hay'adda MSF oo iyadu dhawaan timi magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. waxaana kaloo hoggaamiyuhu u sheegay in ay dhammaan dadweynaha iyo ururada bulshadaba ay shirar la qaadan doonaan ugana warbixin doonaan arrimo fara badan una sheegi doonaan waxa ay la soo kulmeen iyo waxa ay kala soo noqdeen dalka dibadiisa. waxaan marka ugu horeysa mahad u celinayaa hay-adda MSF Holland oo noqotay hay-addii ugu horeysay muddadii 21 sannadood dalka Soomaaliya burbursanaa. hay-addii ugu horeysay si official ugu soo dirta saraakiil sarsare si ay u ogaadaan nolosha iyo baahida shacabka gobolka Cayn. waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan hay'adaha kale caalamku in ay yimaadaan waxna u qabtaan dadka deegaanka ku dhaqan oo runtii baahi weyn u qaba in hay'adahaas yimaadaan. kastaba ha ahaatee hoggaankan ayaa waxa imaatinkiisu ay ku soo beegantay xilli la rabo inay deegaanada SSC uu ka qabsoomo shir wadatashi ah oo ay dhammaan isugu imaanayaan dadka ku nool gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn. shirkaasi oo aan wali la shaacin ilaa iyo hadda meesha uu ku qabsoomayo. Xamse Xasan Geele, Buuhoodle.